hooyadii ninkii dilaan waan garanayaa kiirbada ku mudan waan garanayaa wixii lagu mudan doo khaldan ahayd oo aan qaabkii loogu talagalay lagu mudan waan garanayaa cadaalad baan anigu sugayaa cadaaladda ilaahay markii koowaad ka sugayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka ugu horeysa waxaynu ducaynaynaa hooyadan ku geeriyootay isbitaalka guud ee gobolka Togdheer Allah u naxariisto baynu leenahay mar labaad waxaan tacsiyadeynaynaa saaxiibkay Cabdi Fataax Maxamed Cabdilaahi samiriye iimaan Allah ka siiyo baynu leenahay information ka xagga dambe ayaan idinka siin doonaa oo isaga inooga warrami doonaa hooyadan Allah u naxariistay waxa isbitaalka guud ee magaalada Burco la geeyay iyadoo soconaysa oo nool oo hadlaysa oo caafimaad qabta kabacdi markii la geeyay xanuunka loo yaqaan xiiqda ayay qabtay waxaana lagu soo eertay isbitaalka in oxygen laga helo ka degdegmayna xogta isaga ina siinaya waxa jirta hadaba isbitaalkii irbad khaldan sida ay sheegayaan ayaa lagu muday irbadaasina waxay sababtay geerida hooyadan Allah u naxariisto baynu leenahay wala dhimanayaa oo geeridu waa shayga kaliya Ilaahay inoo ballan qaaday in ay kula kulmayso balse laakiin meed baa canaan waayay baa leeyahay horta dayaca waxa la yiraaho ee ka yimaada isbitaalada cidima isweydiisaa yaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa cidii anagu aanu dooranay oo madaxweynuhu ugu sareeyo ee aan cod iyo qof u dooranay baarlamaanka golaha wakiilada ku xigo golaha deegaanka ku xigo sababtu tahay anagu wasiirka caafimaadka maana dooran agaasimaha maana dooran laakiin cidii soo dirsatay waa cidii wadankan mas'uulka ka ahayd ee if iyo aakhiraba laga xisaabtanay waxaynu sii deenaynaa inta ayna ka hadlin arinta Cabdi Fataax iyo sida ay wax u dhaceen haynooga warramo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugu horeyn qof kasta muuqaalkayga arka waxaan ka codsanayaa inuu igu soo duceeyo hooyada Ilaahay u naxariisto maanta 3 galabnimo waxa dhakhtarka weyn ee magaalada Burco ugu qashay hooyaday aan aad jeclaa waxa dhacday hooyaday waxay qabtay xanuunka xiiqda oxygen ahaan ayaan u geynay ama oxygen lagu xidho ama dawada salbata moolka loo yaqaan qof naqas ka dajisa in lagu xidho ayaan u geynay gargaar ahaan hooyaday dhakhtarka weyn waxa ku qashay dhakhtarkii markaa ku jiray shaqada iyo cidii caawinaysay waxaana lagu muday irbad khaldan markaan dhakhtarka keenay ay eegaan cabiradeedii xiiqdii haysay ay dhaheen xiiqda waxa uu heliyay dhiikarba ay qabtaa anagu dhiikar kuma aanan ogeyn waxay dhaheen waxay u baahan tahay horta in dawada naqaska ay qaato markuu naqas ka dago iraabkii dhiiga dejinayna la siiyo haduu degi waayo labadii markii ahayd ayaa la cabiray markii naqaskeedu sidii yara dhaamay waxay dhaheen dhiigeedu muu degin oo cabiraynaa way cabireen waxa la yidhi dhiig muu degina soo qaada darwadan BB-ga dhiiga dejinaysa dawadii waa la soo qaray ana soo iibiyay waan u keenay hooyada way caafimaad qabtay way hadlaysay wax way cunaysay naqaskii hayay marka horena waxa loogu xiray dawadii waa lagu xiray si uu ka soo reynayso naqasku uu hayay laakiin sidii hore kuma ahayn hooyaday waxay soo xigtay 3 marar gudahood hooyaday hadlaysay oo nool oo cunaysay iyadoo meeyda waxaana sababtay irbada lagu muday oo leeydi loo kala qaybiyo markii doctorku soo qoray wuxuu dawada loo kala qaybiyo 3 mar bay kala qaadanaysaa iyaga garanay qaabka ay u isticmaalayso markii koowaad waa lagu shubay waxay dhaheen saacad baynu sugaynaa saacada kadib weeyagana dhiigga duudo uma baahna hadii kalena dawada labada mar ay u haray baa mar mid la siinaya labadii mar ay harsanaa loogu talagalay in laba mar la kala siiyo sidii doctorku u soo qoray markii labaad markuu dhiigga digi waayay eegeen saacad kadib waxay dhaheen dhiiggu digine dawadii lagu mudo dawadii harsanayda talaagada laga soo saaray ee labada mar loogu talagalay in la mudo labadii mar la israaciyay markii sida loogu muday uga dhamaatay ayay booday gidaarka isla dhacday gacanta dhulka la dhacday alla maxaa lagu muday koomaysi ku gashay koomadii kama soo noqon waxaan halkan baa uga dirayaa laamaha cadaaladda iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaamiye Dr. Cabdiraxmaan Ciro in badan baa Soomaaliland lagu xantaa waliba bahda dhaqaatiirta inaan cadaalad jirin oo cadaalad waxa la yaraatay qofka marka uu ku go'o oo ka hela dhakhtar caafimaad aanu jirin in badan baa lagu soo celiyo la xantay inaan loo cadaalad sameyn cid dhakhtar
ku nafweyda ee qaab khaldan loo daweeyo tan haddii cadaalad hooyada heli weydo waxay ku biiraysaa ama waxa dhab noqonaysa in cadaaladda Soomaaliland aan waxba ka jirin ee Ilaahay la sugo oo laga samro jumhuriyadda Soomaaliland wax cadaalad ka jirin halka laga samro hooyada ninkii dilaan waan garanayaa kiirbada ku muddo waan garanayaa wixii lagu muday doo khaldan ahayd oo aan qaabkii loogu talagalay lagu muddo waan garanayaa cadaalad baan ugu sugayaa cadaaladda Ilaahay marka koowaad ka sugayaa marka labaad waxaan ka sugayaa in Ilaahay soo dhexmariyo gudida ama garsoorka ama cadaaladda ama laamaha amniga imka ku haya gacanta hawshii oo idaaca talaagada ay ku jirtaa buri ayaa loo balansan in la baaro insha Allah Ilaahay waxaan rajaynayaa cadaalad waxaan salaamayaa dhamaan dhalinyarada baraha bulshada garab joogtay iyo suxufiyiinta hooyada hadii buri cadaalad heli weydo daan cid hooyada shaqan garanaya aad baan salaamay sida halkan ku soo arkayseen arrintan Cabdi Fataax sheegay kuwa ka horeeyay ba jira waxaan kaloo leeyahay dadka waxaan u sheegayaa dhakhtarka weyn inay iska ilaashaan dhakhtarka weyn wixii islaam ay daawanaya inay iska ilaashaan haddii la oran lahaa inta badan qolada caafimaadku dawladda wasiirada iyo wasaaraduhu way difaacaan oo sidaa horeba toddobaadkii hore u arkayseen wasiiro aan caafimaadku khusayno ka doodaya arrimaha caafimaadka dhakhtarada ka dhaca ayaa jiray balse laakiin kuwa ka horeeyay oo kale oo aan cidiba eegan ayaa jirta oo iyaga laftigoodu isla dhakhtarkan guud ee magaalada Burco ka dhacay iyo dhakhtarada kale Soomaaliland badii waxa hadaba jirta hooyada sida ay sheegayaan xiiq bay qabtay irbada lagu mudayna waxa ay sababtay geerideeda hadeerna laamaha ammaanka ayaa gacanta ku haya oo arrinta anagu ka hor dhici mayno sida uu qofkani ama dambiilo ku noqon karo ama uu isu difaaci karo sideedabana waxa weeye dhakhtarku waa qofka kaliya ee aan cid la murmin haddii imanka u tago oo kiniin wii qoro oo kiniinkaasi isagoo khaldan ba geerideedaba sababo waa qofka kaliya aan cidina ku murmi karin waa dhakhtar waa doctor wuxuu haystaa degree diploma oo haystaa weey xisaab waxa la yiraahdana cid lama xisaabtato dabagal dhinaca caafimaadka waxa ugu badan ee maanta dadku ka rajo go'aan ee cisbitaalada dhamaanba Soomaaliland lala qayrinayo waxa weeye caafimaad la'aan caafimaadkuna waa nolosha la markuu ka yahay hadaba waxa weeye kuwa barefadka lama yaabayo oo nin shaqaysanayo dukaan haysta cisbitaalkii guud ayaa qofka doonay wax mudaya irbada doonana lagu mudaya hadhowna qofkaasi waa Allah u naxariisto waxa jirta qofka in la tacaalo oo caafimaadkiisa si loo sugo ama loo badbaadiyo waqtiga marka xaaladda uu ku sugan yahay waa la isku dayaa balse laakiin qofkii haddii aan waxba ka qaban karayn waa in uu qofkii aanu dahagadaamo u geysan aniga laba dhacdo iga soo maray halkan kama sheegayo oo haddii aan sheego dib waabaan la iga rumaysanay laba dhacdo xaqiiqo ah iga soo maray waliba haddii aan kuwa kala ku darana kaba sii badanay mid kamid ah haddaan soo qaato artigaygu ahaa dhakhtarkan keenay waa la sawiray waxa la qabsin buu qabaa laga qalo waraaqiisi wixii baa la hayay waxay noqotay qabsinkii la qalay markii la qalay sidii intii kale maalintii dhaweeyo kale laga doodayo kale markii la qalay waxa la ogaaday inuu kansar yahay markii cadkii laga soo jaray bacdana lagu soo riday soo aasbanay kabacdi daqiiqada kabacdi odayga Allah naxariista wuu bararay tolmihii oo dhan way go'een dhamaantoodba markii tolmihii oo dhan go'een dhakhaatiirtu way noo iman weyday marba mid baa imanaya la yiraahaa uu eega waxba oo neeras baa nagu wareegtay iyo karkaaliye inta ugu weyn ugu dambeyn maalintii labaad oo 4 saacadood anagoo yaabano madaxa hayna oday karo abtigaya waxa Allah naxariista way dhinteen ayuu la faqay wuxuu u sheegay xanuunkan inuu xanuunka yahay wax dawaana aan loo haynin maatida iyo dadkan la joogana inaan loo sheegin odayga abtigay wajigiisa isbedelay xaggaygu uu soo dhaqaaqay kabacdi waan arkay in xanuun geeridiisa sabab u ah oo hayo looma sheegin hablihii walaaladii
dadkii kale ee hayay adigu odaygii sidaan halkii ugu eeganaynay oo subaxii walba dheecaanka calooshiisa si toos baan u aragnaa oo dee tolmada iyo tolmiga gogoyana dee saasay u qaranta sidii way u qaranta bararkiina uu dhaafay intii loogu talagalay ugu dambeyn 28 casho ka bacdi ayuu odayga geeriyooday dee maalintaas uu dhintay laakiin dee maalinta naftu ka baxday uun baa maalintan dhacdooyin kale oo imika xitaa waraaqo halkan iigu jira aan hayaa way jirtaa haddaba waxa weeye uma socdo waxaasi waa wixii dhacay maanta waxaanu leenahay dawlad cashuurta aanu bixinno waxa loo baahan yahay maanta haddii xitaa aan waxba naloo qabanayn in cisbitaalka la xidho bal hadday imika dhacdada kale 2 toddobaad ka hor ka dhacday bal hadday ila eega هذا مرينا ساعة كون يجا حقيقي شو أنا عيد واحد مكبرتي أرنتو دي ملا تحجريه أو السبتال كل النظام كراهوسي ولي وحمل جوي دي السبتال كلفت جيس هذي لا ترى عقبضة واحد كيني يوم لقى ورايستي السبتال كويس كنا نوع ما هذا وقيب لكن وعدوني كوبو بدنا نوع أنا محاكيني كرا مقارباني هينين ما دخاتير بنشوجين ما waa sababtiina wax laga ogaan karaa way cisbitaalka laftigiisa hadii guri uun dadka la jiifiyo oo noqdo laakiin xagga caafimaadkii kale uu ka aradan yahay dib maxaa la isku caantaa meeshii waxa ma yaalina in la xidho leeyahay dadka dhulka cisbitaalka doonta ilaa walba way doonanayeen Itoobiya iyo Hindiya iyo dalka dibadiisa mooyana gudihiisa ciidaba kuma kalsoonee farmasiga keenad ka iibsato mooyana maanta meel aad isku aaminayso ma jirto وانا فشل كي يمدين عافماتك وسيدي للدون اللي جيري بريد وده حنركي متشيء يضرب وقبتي نختر واللي يروح أم لسان وفرت نختر أم لسان وفرتي كوان حوارها وكشغيت رو ككع دي صوت المتشان وتبرع يهرجيس هذا هو مسؤولين دولته نخاطير تقولي ما أرق قف lagu soo taandhaynayo agaasime cisbitaal guud xukuma iyo kuwa kale oo doctoraa ka hawlgala oo wili sharci la soo hortaagay waayo waxa lagu oranayaa waxa haysta shahaado medicine buu haystaa tii shahaadada medicine-ka ma ilaahay baa soo raaciyay miyaanu intuu wax soo bartay wixii hadduu doono wax ka duwan ku shaqeyn karay isagoo wadnaha ku takhasusay ka waran haddii uu midhicirada ka shaqeeyo qof kale takhasus buu leeyahay ودي ما أها هدو مدرسين صابرتي إنه حنون كاستقالي كرو ودوين كرو لكن كنترول عفماد ملي وأنا ماشى مانتا أينو أقول لي ذن وحنا ترتدد كي مانتا عفماد كوباهنا بقلال إيه بقلال دعضو أو دعضي وأن عجبي إيجيم haddii la eegana waxa la baadi doonaya waa xal weeyaan xal uun de marka wax ku dhamaadaan ayaa la baadi doonaya laakiin waajibkii dawladdu lahayd in lagu dabageli lahaa iyo haddii dawo khaldan tahay iyo haddii mid qof lagu mudayo tahay iyo haddii ay dhacdo markaa dhacday tahay la isku dabageli lahaa dee maanu arkin runtaa la qaatay arrinta cusub ee maanta ka dhacday iyo kuwo kaloo ka horreeyeen waxaan codsanaynaa in siday tahay haata wax looga qabto oo qaladku xitaa meeshan uu ka imanayo sida joogtada la dabagalo annaga haddii la doono hay'ad nalaga iibiyoba caafimaadka gebigiisaba laakiin waa inaan caafimaad sax ah helnaa maanta kaasi uu dhintay laakiin biri soo qaar kale lama keenayo kuwaana ma Allah naxariistaan nolaa inta aan dhimanaysay aan cidiba ogeyn xitaa annagu war uma hayneen aakhiru ba xisaabtaana laakiin isbitaalka guud mar walba meed waa laga saaraa xabad lagu baraarugo ee la qayliyo maxaa wax looga qaban waay maxaa loo dabageli waay cidda qaladkan ka yimaado maxaa loo eegi waay doctorku waa ninka kaliya aan shacabka laba mar ku karin waxa jira caafimaad ganacsiga jira ka qofka
waxaad adigu doonaysaa inaad iska baadho adaa u tegi ka wadnahaad u tegaysaa ka qalliinka ka lafaha kabaad u tegaysaa dee waxaad adigu doonaysaa u dooratay laakiin cisbitaalkii guud warkiisii horta yaa haya maanta hooyada inaga dhibatay inuu wada ducayno allah u naxariista baynu leenahay caafimaadka ilaahay baa haya ka digtoorkaana inoogu soo dhiibi karaa laakiin waxa dayaca la yidhaaho yaa ka mas-uula taas waa su-aashaan idin weydiinayo dayaca yaa ka mas-uula ma digtoorka ma dowladda ma dadkan tegaya marka u horeysa cidda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay ee sida joogtada inay uga warhayso maanta waxa weeye duni kashifan oo aan waxba ku qarsoon haddii berigii hore dadka aanay hadli kari jirin maanta waa duni kashifan oo shayga xitaa aad u baahan tahay dhakhtarka kuu soo qoro waxaad ka baadhaysaa maanta baraha bulshada qaybo ka mid a ayaad su-aala ku weydiinaysa waxa uu qabto irbad haddii lagu soo qoro ama kinin maanta caafimaadku wuxuu yaallaa halka waad iska baadhaysaa aqoontu u leeyahay mid leeg ayaad ka baadhaysaa iyo macluumaadku ku saabsan yahay shaygan dawadaa lagu qoray meeshii lagu soo sameeyey wax maanta ku qarsoon dunidan ma jirto haddii waayadii hore qofka inta la xareeyo loola jiray dibadda uga baxa haddii qofka inta saacado iyo lagu xidhxidho naqaskiisa iyo la cabiro kaardhiyadiisa maanta waxa weeye qofku caafimaadkiisa dhammaan wax allaaliya wixii ku saabsan dawadaad u qortay qaab digital buu hubsan karaa waa run weeye taasi qofka aan aqoonta u lahayna mid aqoon u leh ayaa u baaraya doctorka Australia jooga baad halka ka weydiin karaysaa dawadaas waxay tahay iyo waxay qabato inta nooca ay tahay waxa laga ilaalinayo hadda waxa jirta xanuunkan xiiqda 8 irbadood laga ilaaliyo ba jira waxba sii qaadi maayo oo irbadahaana inuu sheeg maayo ee waxaynu ka sugaynaa ciidankii ammaanka iyo baaristii oo socota ayaynu ka warsugaynaa kana hor dhici mayno dayacaasina dee ma aha maanta kow shalay waad arkaysay doorhaad baa arkaysay oo kuwa aan cidi ka hadlayn baa arkaysay oo kuwo hoos loola faqay oo arrintii xal lagu dhameeyey baa arkaysay oo kuwa aniga iga hor fadhiya igu dhacay oo aan cid allaale cid aan uga dacwoodaan garan waayay baa ayaa jira waxaanu oran karnaa isbitaalada waa meelaha ugu xun ee maanta dadku ka aradan yahay ee aan xitaa cidiba haddii wax kasta sheego dhakhtarka waxaad moodaa inaanu isagu cadaaladda waxba ku lahayn waxaad moodaa dhakhtarka inaan cidiba la xisaabtamayn nin ilaahay garanayo isagoo is-xisaabiye mooyaane marka hore dhakhtarka cidi wax lama oga waxna ma sheegaan kaasi hadduu irbad khaldan ku soo mudo xitaa adiga kuu sheegi maayo ka kale aad u tagto ku odhan maayo qofka irbad noocaasa lagu mudo maalin walba waxaa dhacda qof baa halkan laga qaadaya Ethiopia la qabatay waxa la odhanayo dawadii hore laga maydho birigoor waxa soo jiray waa sumcad laga dilayo dhakhaatiirta Soomaalida waa arrinkaas waa proof buu noqday waayo tunku hadduu cadaynta hor timaado dee waa xaqiiqa warweyda salaamaya dhammaan bari geerida aynu wada timi hooyadaa dhimatay Allahu naxariisto aynu soo wada ducayno nabigana ha lagu salliyo calayhi